تدنس فلاتاسيون مدفع اوتوماتيك بو دعايا markale carrada bariga dhaxeeyadu indhuhu ku mashquulsan yihiin Chelsea baa harageeda lagu tukaday Arsenal waxay noqotay boqorada London hadal la taakuma jiro Arteta aqliyadiisa ayuu ku maamulay markale habeen kale saddexda waa u qaatay waxaanu yahay macallin dhaafsan taytalka haatan lagu magacaabay sababtoo maxaa yeelay waa mid garanaya guranaya gaadhaya guushu halkay taalo iyo horyaalka tani marka la joogo xaalkeedu waxa uu noqonayaa isbeeqle Messi sababtoo maxaa yeelay Chelsea jugti ka yeedhay ayaa cibaaro ugu filayd mucaaradadii gambadhada ugu fadhiyay in kulankan derbiga Arsenal ay ku fidoonto 22 sano kadib farxadda ama farxiya ayaa iman doonta arooska Arsenal ayaa loo dareeri doonaa ayay u egtahay cimilada haatan lagu jira reer Arsenal wax kale lama oran karo intudnas falatasiyoon loo qadimo mooyaane buriya biyo waxa loo kala bixi doonaa haddaan cibaarayo mucjisa aanay dhicin maalinta City la wada kulmi doono kulanka Chelsea aan si gaar ah isu dul taagno walow reer Chelsea ay noqdeen kuwa kaadhka casku naaxo ka afura 12 shuuda lagu tuuray kooxda Chelsea 5 ayaa lagu aadiyay halka ay 9 tuurtay 3 ay ku aadisay 41 ku badaysashada Arsenal xarago kamay dayin natiijo ay meesha u timi halka 59% ay ka tahay Chelsea 338 baas oo ay kooxda Arsenal samaysay 277 ayaa aqliyadii Arteta sax ka noqday oo halkii loogu talagalay ku dhamaaday 477 baas oo reer dollar barkada ay sameeyeen 420 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday guul darro lagala kulmay taakaladu waa 3 dheeri oo waa 17 iyo sidoo kale 20 Chelsea 12 foul iyo 14 foul shan koorno Arsenal heshay kuna faa'iiday kuna cibaadaysatay kuna maxamadaysatay farxiyana meherkeeda ugu diyaarisay halka ay 10 koorno ka heshay kooxda Chelsea midkoodna uu noqday goolka calanka xidigaha markaan si gaar ah isu dul taagno Henkambi haba iska dhaliyo laakiin wixiisu wax kale ay ahaayeen 39 taabasho 90 daqiiqo la ciyaaray 25 baas 2 taakal 3 loolan oo guuleystay direction of play-ga uu kulanka ka sameeyayna hay kalaas ayuu ahaa sidoo kale Bukayo Saka 45 taabasho 1 shoot 25 baas 1 taakal 90 daqiiqo waa la dhameystay 6 loolan oo guuleystay direction of play-guna waa mid qaybihii loogu talagalay siday ahayd hirarka efamiyada loogu helayay sidoo kale Julian Timber 42 taabasho 2 shoot 27 baas 1 taakal 1 gool 5 loolan oo guuleystay garoonkana qaybtii uu ku shaqo lahaa iyo qaybo kale oo lagu daray waxa uu ahaa mid ka adeegtay sidii loogu talagalayna uga maxamadaystay oo yiri madfuucu waa mid automatic u dhacayo dibadda laga maamuli karo Torreira samata bixiyaan maalmaha adag kooxdani gurmadka degdega u qaabilsan 33 taabasho 1 shoot 19 baas wax taa kale ismu kala bixin 2 dribbling iyo sidoo kale 4 loolan oo guuleystay direction of play-gu waa mid wada raad ka dhigay gudaha garoonka qaybihii loogu talagalay qaybi uu xil saarnaa xidigaha Chelsea markaynu dul istaagno mid iyo laba Pedro Neto 28 taabasho 1 shoot 20 baas iyo 1 foul uu galay abdigani waa haliyay Borash ayaa loo oran karaa maalmaha adag miyaa sidan la yeelaa oo sidan la isugu ballaqaa waa maya sidoo kale Sanchez goolhayaha weeye Roberto Sanchez ee Chelsea maanta haddaan isagu joogi lahayn Arsenal way caadi u maxamadaysan lahayd farxiyana ay caawo la xayaadi lahayd 2 gool oo Constantino baa horta laga dhaliyay akri baaskiisuna 3 bay ahaayeen 3 sayf oo high class-na uu sameeyay 51 baasna uu dhigay high claimkiisa laakiin low ah isagana halka Mahmoud Sarr isaguna 7 taabasho 1 shoot 47 baas 1 taakal iyo 1 loolan oo guuleystay qaybta garoonka u xil saarnaayo qaybo kalena wadnaha ayaa ku cadaaday ninkan Arsenal abaya macmiil bay u tahay Chelsea nimankan jugtuun baa u qornayd haddii Chelsea laga hor yimaadoba afartii kulan ugu dambeysay hal marna Chelsea may maxamadaysan intaba farxiya ayaa looga dhawaanayay agtooda oo kulankaas 3 dhibcood ma la soo qaatay habeenka farxiya ayaa hoteelada waaweyn ee London casho lagu lahaa sanadka Arsenal farxiyo way aroosaysaa waa dhab nimanka farxiyo ee farxadda la hooyanaya milxiisnimadu way dhaafeen nimankan Arteta aqliyadiisa mid bislaatay oo ekaatay laakiin Arsenal waa koona quutayaal difaacana wax way ka imanayaan sidoo kale oo difaaca meesha ku haya weerarkoodu waxaad moodaa madhalays maalmaha adag difaacun baa lagu cimaamadanaya koornahana way quudanayaan waa kurka nool فهمت علي شيء كله كلام يا أخي كوريال كوريا كركا لغو قاضي أيون نغن دونا فرحيا لغو مهرسدي يا مركا مالنتو مالين مالما كتل مامنا يهي معلن أرتيتا قول هاي الريا يؤادو أماني لنكن متشاها يريري وحبين كنيساقا وحاوها ميد عبديي أو أحمديي نوع كستا عدي معا فريرو انتبا والله قاقا ساري هدانو يساقو تشوق لهينا تشيلسي سيدانو ماي حمدوتين هبين كان دربيقو
wuxuu noqon lahaa kaalay oo arag laakiin raya gacmihiisa ganjeelka ayay Arsenal habeenkan ku badbaaday Tottenham Hotspur ayaa reer Arsenal madfici automatic ayuu dhacaya aqliyada Arteta way bislaatay taageerayaashii muddada badan samirka badan halka darajo oo kaliya ku faari jiray golaha kaftanka ee ahayd inay ambitin horyaalka ku qaadeen golaha kaftanka middaas la soo fariisan jiray farxiyo laakiin sanadka suurkeedii way u sii tosheen oo mar hore haddaanay sidoodii biiqin sagaalka kulan ee hadhay yaa reer Arsenal anigu meherka iyo arooskaaba xaadir bana tigirkayguna way go'an ma garateen marka reer Arsenal arooska inuu soo dedejiya farxiya 22 sano kadib Arsenal ayaa farxiyo guursanaysa waa sax farxadana waa lagu wada xukumaya fantashiru fil ardi maxaa hari doona sagaalka kulan kadib waynu eegi doonaa Tottenham Hotspur yaa reer Arsenal maalintii maalmaha ka tilmaamnay kuwa maxamadiistay ayay ahaayeen la kala guuranog la kala goosano marka Arteta uu yahay macallinkaaga waa mid garanaya goosanaya oo waliba gool gaadhaya sidoo kale kulankii sida gaarka ay loogu hayay waxa waa kulankii kooxaha Man United iyo Crystal Palace Man United way maxamadaysatay maalintan kadib markay ay samaysay soo laabasho cajiiba Bruno Fernandes haddii aad haysato waxaad haysataa mid ka mid ah burburiyayaasha iyo kuwa cadowga kala daadiye ee baabaa ka dhiga sidoo kalena Seskona hadduu ku joogo manchadheeraha kubadda madaxuun baad u saaraysaa cadowga garka wadnuu goynaya ninkaasina waa wax kale Carrick waxa uu imika sidaa ku noqonayaa sanado badan kadib macallinkii u horeeyay kooxda Man United dhayliye ee shantii kulan ee ugu horeysay gurigiisa ku guuleysta yaa nimankii way caafimaadeen oo sax bay noqdeen haddaba iyaga kulankoodana aynu isdul taagno 20 shuudo baahida Man United ka turjumaya ayay kooxdani gantay 11 bay ku aadisay halka iyaga lagu ganay 8 oo Crystal Palace ay gantay 3na ay ku aadisay boqolkiiba 60 ay ku badaysashada United halka 39 boqolkiiba ka aad Crystal Palace 610 baasoo kulanka la sameeyay oo Chakatoreynaha 522 ayaa halkii loogu talagalay aqliyadii Carrick ka turjumayay 379 baasoo Crystal samaysay 303 ayay dhamaystireen 13 taakal oo kooxda United iyo 17 taakal kooxda Crystal Palace faawaladu waa haldheeri waa 13 iyo 12 toddoba koorna waa la helay habeenka halka ay hal koorna ka heshay kooxda Crystal Palace gool hayahoodii hore Hernandez ayaa ahaa midka gacmo ganjeela Crystal Palace ugu jiray habeenkana Casemiro iyo Dialaba kaga dhaartay inay shabaqa booqdaan alla muxuu ku adkeeyay oo la dagaalamay laakiin Bruno halkuu ka galaya intuu rikoorihiina ka dhaliyay ayuu markii dambe yiri Sesko yarka madaxa ugu dhib oo madaxadkaade madaxu buu ugu shubay ayay gacmo ganjeelnimadii meeday gacmo balle hooyo iga dhali miyaan kaaga dhigaaba ka leexo halka ka gashay iyaguna waxay ahaayeen kuwa maxamadaystay Axmed Deeyay oo wax walbaba kaalinta saddexaad ku yimi habeenkan habeenada ka tilmaaman gool haya Lemens waa lagu caanamaalay hal gool baa ka dhashay 17 agrebaas laba seefo high class oo uu sameeyay 24 baas iyo high kalamkiisa oo ahaa hal maxaa ka galay the direction of play-gana waa sidaa halka ka aragtay Bruno Fernandes hal gool hal assistant afar shoot 78 taabasho 3 cross ama 3 gambis iyo waliba afar loolan oo guuleystay garoonkana wada raad baa laga dhigay qaybihii loogu talagalay iyo qaybo kale Casemiro 114 taabasho alla maanta muxuu baahi u qabay inuu gool dhaliyo laakiin gool hay Henderson ayaa kaga dhaartay 90 daqiiqo xataa la dhameystay 98 baas baa la sameeyay afar taakal oo dhuljiifo qorciideeda iyagana waa la bahalkiyay laba dhuwalosti oo la lumiyay 11 baase lagu guuleystay inta loolanka la galay Diego Dalot 90 taabasho 77 baas hal taakal afar loolan oo guuleystay qaybta garoonka uu ku sugnaana waxay ahayd mid saxmadu ay hadhaysay sidoo kale Harry Maguire 73 taabasho hal loolan oo uu lumiyay 63 baas laba faawal uu galay iyo 6 loolan oo guuleystay direction of play-gana waa mid qaybihii loogu talagalay ka soo baxay mucjisada raafaha gaagaaban ee Kobe Maino 85 taabasho hal shoot 70 baas afar taakal iyo 6 loolan oo lumiyay iyo 6 uu ku guuleystay qaybaha garoonkana wuxuu ahaa mid sideedu uga soo baxay halka Benjamin Sesko hal gool 10 baas afar shoot 16 taabasho 3 loolan oo la lumiyay iyo 6 loolan oo lagu guuleystay qaybta garoonkana waxa uu dhaqdhaqaaqiisu mid high class Lena Yoro isaguna waa wax kale 18 taabasho 6 loolan oo la lumiyay 75 baas hal loolan oo guuleystay ceebina kamay dhalan waxaas oo dhan balse natiijo wacan ayuu la baxay
habeenada ka tilmaanaana waxa uu ahaa mid la maxamadaystay oo Arsenal ay ku fantasiyeynayso kooxdan ay abaya macmiilka ka dhigatay Chelsea reer dollar barkade oo ay jugta iyo nagtaba jikaarka iyo jujubka iyo jiilaalkaba laga bixin ayay yiraahdeen jumladahaan u qaat xubintu waa kariska iyo kala aadintaan waxaan ahay Maxamed Tirke midda xigtaynteedu ku kulmi doono inta ka horeysa sida yaamaana